Welcome to Nulii Productions. Subscribe for more videos. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبهدينا عليه وإذن سوجدين دون برنامج كسابسن نولش ميغا. وأنا إذن سعودين دون أنيقو هاجي. وصور هذا برنامج كوفاف أصلا. نولش ميغا أما باديها. وفكل شباديها كنا صوب بربارة. بعد مدة إنه كدوان يهاي قفك كل مجالك كنا صوب بربارة. حق أذيك فكرك يوحي لمدك nolosha miyiga ama baadiyaha waa nolol cajiib ah wax badan looga barto qayb nolosha ka mid ah sida qofnimada hogaaminta dhaqanka garashada kartida farsamada iyo isku tashiga waxaan rabaa inaan si gaar ah u dul istaago hogaaminta qofka markii baadiyaha ku dhasho waxa lagu soo barbaariyaa mas'uuliyadiisa markii ay tahay da'diisa 4 ilaa 6 sano waxaa loo diraa ama la raaciyaa waxaraha da'da wiilka markay u dhaxayso 6 jir ilaa 10 jir waxa uu uga sii gudbaa ari raaca iyo inuu qabto shaqo hawleedka markaas loo diro sida inuu dhaanka soo celsho geela raaco oo ah tababar iyo inuu gaaro heer mas'uuliyadda lagu aamini karo 10 sano markii uu dhaafo wiilka baadiyaha jooga waxa uu gaaraa heer uu geela raaco dhaanka wax ka dhaamo reerka raro ama geediyeeyo 15 sano markii uu gaaro wiilka baadiyaha jooga inta badan haddii aan laga weyneyn waxa uu la wareegaa mas'uuliyadda cidda sida inuu geela raaco oo uu daaqsiimo dheer u wado oo loo yaqaano bulsheyn iyo inuu cidda raro ama barin cusub dejiyo 20 sano markii uu gaaro wiilka baadiyaha jooga waa mas'uul dhammaystiran wuxuu gaaraa inuu kaligiis meel dego guursado xoolo yeesho maamulana wuxuuna tala ku yeeshaa maamulka reerka waxaa jirta maamaah caan baxday oo ka hadlaysa miyiga oo ah 20 jir miyiga jooga alla uma ceeb qarin oo loola jeedo inay soo baxayso markii uu da'daas gaaro raganimadiisa iyo doqonnimadiisa fiiro gaar ah qofka baadiyaha ku dhasha u weynaada haddii uu joogo miyiga waxa uu noqdaa nabadoon iyo hogaamiye dhaqan haddii uu beledka tagana waxa uu noqdaa hogaamiye